والله وبالله وتالله Soomaalina ma isdhiibayso annaguna ma isdhiibayno qof dareen Soomaalinimo iyo dareen muslim ku jiro inta uu nool yahay khawaarij dalka ma xukumayso maxaa yeelay annaga meelan aadna kala ma haysanaba waxa la yiraahdaa dirinina ka dambaysa dib u dagaal yiraahdaa meelan dib ugu dagna ma la Soomaali ka takadil ugu dhaasaake meel aad mirid qaxootina gashaa waay dumarkii caruurtaba intay dolyiin dal shisheeya joogan urda jiif samayno degta qoriga noo suuraan dhalinyaro xilli waxaan joognaa dadka isku qasmeen oo la kala gareyn oo kan daciifka ah oo aan kartida lahayn oo dunta xun oo ka hadlaayo geesinimo iyo karti ka hadlaayo kan munaafiqa ah oo beenaalaha ah oo beenta ku sharxay qiimaheeda kan khaa'inka ahne oo kala hadlaayo wadaniyad iyo daljaceyl iyo balan oofin oo kala hadlaayo maanta marka waqtigan adag inaan soo gaarno oo bil soonqaad lagu jiro oo la sooman yahay oo xilligu uu kulul yahay abaar ay jirto inay khawaarijta iyo argagixisadu ay colaad ka abuuraan halkaan dagaal soo qaadaan xilligeeda inaan soo gaarno waxay na kala baraysaa dadka dunta fiican leh oo wanaagsan iyo dadka macdantooda kala baray waxayna kala baray dadka macdantooda kala baray waxaan joognaa maanta xilli aan kala saari karno qofka wadaniga iyo qofka khaa'inka ah kan beenaalaha ah iyo kan runlowga ah kan munaafiqa ah iyo kan muuminka aan kala saari karnaa la joogaa marka xilliyada adag loo adkaysto waa laga baxa markastana xilli adag waa jira qofka intuu nool yahay waxa ceebta ah oo aanan la cafi doonin waxa waay qofka inuu isdhiibaa waay waxaan ballanteenu ay tahay in la jihaado oo la halgamo oo la dagaalamo dadka ku shahiiday dagaalkaani waa dad shuhada ah waa la hubaa hadii ajir maleystaan dagaalka khawaarijta lagu jiro qof ku dila iyo qofkii asaga lagu dilo labadaba inay janno gelayaan suubanaha naxariis korkiisa aad noo sheegay kuwa dhaawacmay oo dhaawacooda uu fududiyaho la qaadayne ha soo laabtaan waxaan waa jihaad waa halgan jihaadna dhaawac loogama hakada dhimasho yeelkeeda inta kadib waxaan rabaa inaad Soomaalidana u xaqiijino dadweynaha joogana u xaqiijino inta qof ciidanka ka tirsan ama qof dareen Soomaaliyeed leh oo joogo inuu shabaab dalkan qabsanayn waxaan rabnaa inaan ku celino oo aan xaqiijino oo aan hubino oo aan ku dhaarano niraahdo wallahi oo billahi oo tallaahi Soomaalina ma isdhiibayso annaguna ma isdhiibayno qof dareen Soomaalinimo iyo dareen muslim ku jiro inta uu nool yahay khawaarij dalka ma xukumayso khawaarij inay dalkan qabsato oo ay ka taliso wax dhici karo oo suuragal ah maaha abadan qofka oo shaki arintaas ka galana asaga naftigiisa khisla khawaarijnimo ku jirtaaba calaamad kamid ah calaamadaha khawaarijta kamid tahay inuu qof isiraahdo Soomaaliya khawaarij inta qabsato ayay ka tali kartaa oo isiraahdo anagu waa dhaawacmi karnaa waa liici karnaa xitaa waa dhima karnaa laakiin suuragal maaha inay khawaarij dalkaani ka taliso ay qabsato Soomaali dhan qabsato suuragal maaha maxaa yeelay annaga meelan aadna kala ma haysanaba waxa la yiraahdaa dirinina ka dambaysa dib u dagaal yiraahdaa meelan dib ugu dagna ma la Soomaali ka takadil ugu dhaasaake meel aad mirid qaxootina gashaa waay meelan aadna ma haysano aan dalkeen inaan difaacano oo ku dhiman ahayn waa dagaalamayna waana difaacayna dalkeena mana nin dulmi wadane wa sameysmay khawaarij inay ka talnay meeshaan oo Soomaali qabsan karin waxa ku tusaale kugu ah shacabkiya diido waa kaasa qoriga wato dagaalamayo diidan dhahay mano ima karta dhahay ciidamada diidan oo dhahayno mar rabno mana joogeysaan dalkaani ma qabsanaysaan dalkaan dadka dhahay waa ciidamada diidan diintiya diidan oo khawaarij meeshii lagu arko khawaarij waa kharij aan diin mugta diin xabad kama oga muslimku waxa la yiri qofka muslimka ah waa qofka gacantiisa iyo afkiisa oo ka nabad galaan dadka kale muslimiinta ah dadkii ay dhibayaan bini aadamka ta dhaafeen xayawaanka dhibayaan macnaheedu waxa waa inay diin haysan ay diin ay shaqo ku leeyeen waa marka sideedaba khawaarij diinna ma leh dalna ma leh ehelna ma leh waxay leeyihiin lama arko waa in aad la jihaada oo la dirira oo la dagaalama cadowga waxaan rabnaa idinka oo intaano dhibaato u dul qaadanay in discipline iyo akhlaaqda lagu daro in la sugnaado
in akhlaaqda la ilaaliyo in la nagaadaa la rabaa oo xabadda micno darada loo tuurayna la joojiyo amar diidadana la joojiyo qofka marba hadduu intaan soo gaaro waxaan u adkaystay waa dhammaynaba argagixis waa dhammaahay waana guulaysanaynaa annagiyaa intaa hubaysan oo meeshan taagan oo aan rabno inaan garabkiina ka dirirno taleefon idin kalama soo hadlayno garabkiinaan istaagaynaa waa idinla diriraynaa waa idinla difaacaynaa dalka waxaa la rabaa marka ilaa intaas adoo soo adkaystay in aadan si micno darro ah wax aan munaasab ahayn aadan ku kicin xabadda la ridaya hala joojiyo war xabadda hadhowdi maxaa cadowga hadduu inta soo istaago amba aan aadna waaba aadi rabnaahe aad isaga dhici rabtaa haddaa xabadda iska ridid maxaa la isaga dhicinaa xabadihiina ilaashada oo ha tuurina oo walaalka hadhowdi qoriga ul musku bedela hadduu qoriga xabad la'aan noqdo uluu noqonahay moogta waxu tiraay male marka waa inaad xabadaha qoryaha laydin siiyo dowladdu dhibay ku keentay ilaashataan waxa aad ku ridaysaana uu cadowga noqdaa waa taliyihii ciidankaa joogo shalay iyo doraad iyo maalinta kasii horreys waxa lasuu soo laalaabanayo ciidanku waxa ay dowladdu heli karto oo badqab ah ma haystaan amnigoodii soo yahay xerada waxaa laydinka rabaa inaad sugnaataan waxaa laydinka rabaa inaad ajir malaysataan ajirkeena ilaahay ma dayacayo ajirkanaga ilaahay ma dayacayo iyadoo rasoonqaad tahay oo la sooman yahay oo kuleelo la joogo oo abaara ay jiraan inaan colaadahan ummaddii ka hor taagannahay oo danta guud aan ilaalinayno ilaahay xaggiisa inaan ka dayacanno suuragal maaha la imaada niyaddii wanaagsaneed dagaalkana la imaada cadowgana intaasoo sana maxkamad qaadaya nin kasta oo shabaab ahaan wareystay wuxuu dhihi jiray gorgoraa noogu dareed markii xabadda nagu ridaysa u dhihi jiray cadowga gacanta saara waa ka adkaanaynaa waxaan rabaa inaan adkeeyo hoosta ka xariiqo guusha waxaa iskale dadkan Soomaaliyeed ee muslimka ah doonistooda ayaa guusha ay ku umaahay waa guuleysanaynaa waana guuleysanaynaa waxaa noo ballan ah ciidan midaysan iyo shacab midaysan si aan khawaarij uga hortagno